lacag baan u aruurinay $30,000 ah qofka soo sheega farta laga saaraya saacadda laga bilaabo anaga markasta xumaanta waa ka fogaahaynaa wanaagana u dhawaahaynaa soo dhowo dawish laga taliyo dad masaakiin ayaan waxba la yeeleen aad baan kaaga mahadnaqaynaa gabadhan u tacsiinayna iyo reeraheedii raalle ahaadaan leenahay gabadhu anakoo dhan bay gabadheena aheede aad baan ku salaamaya dawish soo dhowo daahirow garaad waan ku shaacay maxaa waxaa qaada caawa annaga waa qalbi xumo idin haynaa qalbi xumo aan saa'id ma ah inaad hortee dhegeyso wanigow horta anagu ninkaa anaga dhubahantaana la yidhaahdaa ana aad baad noo taqaanaa anagu dee gabadh la xumeeyey waa gabadh la xumeeyey ninkaan anagu difaaci mayno wixii waajib uu leeyahay ee diintu waxaan ku yidhi marisabuuna marayaa waa ka raganimo taana cid yeeraysa ama qarinaysa horta ma jirto laakiin mid baan ku leeyahay daahirow ninka ma dowlad baa raadsanaysa mise qabiil baa raadsanaya ii kala sheeg gabadhu ninka dowladda waa raadinaysaa qabiilkana waa raadinayaa qabiilka raadinaya markaa ma reerka ehliyadeedii ciddii kasoo jeeday mise qabiil dhan baa raadsanayo qabiilka dadkii kasoo jeeda wey familkeeda familkeeda raadsanaya waa walaalkeed aabaheed la dhashay u dhalay iyo walaalkeed la dhashay iyo eedadiis dadka lacagta bixinaya caawa ana adeerkay baa dhalay adeerkaa dhalay adaana lacagta duldhigisana waan ka mid anahay dadka wax ka bixinaya okay wano ninka anigu waxaan ogolahay ciddii waxaan wax ka geystay inaan lacag duldhigto ninka ay rariyato laakiin qabiildan haddii uu eriyado niyataas wax ka xun oo kasii weyn bay keeni doontaa gabadhaas anagu mana difaacayno ninkaas wuxuu ku sameeyey hadda iga qora anu ma difaacayo ninkaas kalibkagama joogto wax la sheekada xumaan ma joogto meesha qabiil ma aha haddii qabiiltaagabtoodiya caawa jooga muqdisho ma ogolin gabdhaha kaas waa digala dhashay ee ka yar ee ka weyn inaan sidaa loo taabto ma ogolin farxi jal in lagu sameeyo iyo kuwa kalaba waana u sheegayaa haba gees joogto xamar iyo ciidamada ka fogaada gabdhaha dhulbahante waxba noomay geysan nin daalima wax geystay aabihii baa damiinto xabsi ka sii daayey halkaasa annaga taagannahay shareecada islaamka waxay qabto ha noogula qaado taa hadday tahay in adeer cafiyo musaamax ninkaa wixii laga jarayo dowladdu ha ka jarto hana la eriyado haddii waxaan ku yidhi madaxa laga tooganayma haddii la karinayo sidii hilibka inta la kariyo anagu taa kama xanaaqan laakiin haddii qabiil baashu noqoto daanjaroos bay noqonaysaa kaysoo soo dhowow waan ka baxay waraad iyo aad baan idiin salaamayaa daahir iyo daruus sanaag iyo safiya aad baan idiin salaamayaa daahiro ninkan maxaa tahay dhubaante waa dhubaanta ma caddaynaysaa inuu dhubaante yahay maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynayaa ninkan ciyaalka xaafadda waa nin ciyaalka xaafadda la yaqaano reekaas walbalaala waaye waa nin hore u xiraa waa nin aabihii saxiixay fara laga qaaday ninkan fara laga qaaday waa nin hooyadii la yaqaano aabihii la yaqaano waalii la yaqaano iskuulka ay wada dhigtaan ciyaalka gabdhaha wada dhigtaan maaha qof la aqoon waayo laakiin anaa waxbaa kala leexanayo waxaan nacay inaan afku dhiigla noqdo intaan idhaahdo ninka waa dhulbahanta markii waska taqaan dadkaan la boodaan gabdhihii oo aan diyaarsanayn wax la gaarsiiyo odayga wax la gaarsiiyo marka nidaamka dhinaca booliiska iyo waxaan wadnay iyo in wixii si farsamaysan loo xaliyo ninkan lagu qabto wiilashka la shaqeynaya ninkan saaxiibada ahaayeen ee falka kula jiray baadacado la soo qabtay labadoodii askari ahaayeen marka wiilka wiil la yaqaano wey wiil dhalinyaro kamida wey waxa oo caddayn iyo u baahanna maaha qof oo iska caanoo la yaqaano oo aabidan ku sheega adba aqoonaysa qoladu ka laakiin ma raba inaan ka sheego public waxaan rabnaa wixii ilaa xad inaan xakamayno oo si wanaagsan aan u xalino may maqashaa haddaba inaad aragna ne horta annagu dhaqan uma lihin gabadh intaan wasnaan video ka duubno ama gabadh soomaaliyeed inaanu canideeda banaanka keenno ninkaas hadduu dhubaahanto noqdo annagaaba tiirka taaganaba oo milgaha iyaga iyo sidii daruushnimo ku ciyaara dad wada dhashay oo soomaalina waynu wadanaa oo dee niman gabdho maanta iska farafareeyeen hadda dhaqankaas uma lihin laakiin ninkaas hadduu darwiish noqon waayo daahirkaas tiktok ku koobnaado ban ma aqaano ninkaas hadduu darwiish noqon waayo arrinkaa tiktok hababa'daa tiktok uun dhubaanto ka noqdo laakiin uu noqon waayo yow habar gidir oo dhan xaalmarin baan uga fadhinaa laakiin ninkaas hadduu noqdo nin dhubaanto ah waanu ogol lahay
mudnaantay gabadhaasi lahayd iyo xaqii gabadha madida ahayd aan walaalo dhalan iyo hooyada waxana qogooyin waajibkeeda loo mariyo annagaa leh aniga daaro ida awdha baa hadlaysay ninka marraba inaa u jawaabo inaad aniga jawaabi kartid be meeshan arrin baan soo waa ku jawaabaya barnaamijkii dadka xasuusi in madaxiisa lacag lagu bixinayo dadkan waa iska sheekaysanaya anaga topic ma rabno dadka saaxiibaan nahay ay ugu ceebayn madashiida u joogaa anigu waxaan ogaana sheegaya deeqo ay ugu ceebayn ninka odaga ah ragga dhulmaantaha meesha nimanka joogaan xashar fanaadaan u galmud waan ogolahay laakiinse waxaan rabaa inaan dhaho aniga hooyadiis baa hadashay anigu way soo gaartay hooyadiis baa hadashay waxayna sheegtay caddaysay inuu yarkan dhulbaahantay yahay adigu waayahay muudka iska galin halka dhamaystay anigi ma muudka iska galniyo aan dhamaystay muudka galnin baan wada hadlaa qolkii saaranayno ninkan yar haye bal dhamaysto daahirow meeshan anagu dhulbahantaana la yidhaahdaa gabadh intaan u tagno video kuma duubno dhaqankaana ma lihin ninkaas hadduu dhulbahanto noqdo gabadhaa annaga gabadhayadii weeye tayla dhalatay la mid taha waana ka xumaa wuxuu ku dhacay nin walboo soomaaliya maanta gabadh la dhalatay waa ka xun yahay ninkaas hadduu annaga darwiish noqo meeqaamka iyaga dhulbahantinimo ku ciyaaray in la jarjarana diyaar baa u nahay waana garan oo waajibkiisa la mariyo laakiin arrin handadaad iyo gabdho dhulbahantaan wax yeelanaa iyo kan niyadda ha laga saaro haddii gabadh waxay la yeelaya fuqushinii oo dhan baan caawa ku dhaqaaqi karnaa ismaqallo laakiin milgaha iyaga dhaqanu ma lihin inaanu gabadh intaanu fulo video ka duubno ninkaasu hadduu dhulbahanto noqdo xeer walbo islaam leeyahay in la mariyo diyaar ibraahim waxaan kaa rabaa waxaan kaa rabaa kiiska wuxuu dhacay 22 January 2022 soo maaha okay waxaan kaa rabaa hal su'aal bisan ku qabaa marka hawsheeda dhamaysto oo wax ka soo dhameeyo si aan dadka ay ogaadaan yaad ku kalsoon tahay ma jira sargaal booliska oo ku kalsoon tahay oo aad ku aamin qabto oo ku musuqmaasuqayn oo aan dhahaysa sargaalkaas daahir ugu dambeyn ninkaas asaga ah igu wareeji ma jira مش عارف هذه شركة والله هدي أرادسنا وكنا الله هذي سراكي شو ملكا هدي أرادي سكلا وفهمة يا هذي كرت سما كنجرا مبانت هذه وحي يسوق يسين ماركنا سوى جرا أنا وقاضنا لكن هذه قف هذا السرقال هذه أتكون صوتها مجرى بس مجرى سراكي لو كلصونا يا هذا بيجفت هذا إيش أنت تروح السرقال وبهانتاجره كاسن كور جينا سو أصلا كوجي ميل سيفه هذا كل صورنا أنا هذين يقفك وفي عن يقول ده عصن يقول عدالة بدر مهم ده وين أوكي أنا سومر ما هوش لما يجوا أنا سوهلي السرقال وفي عن